bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijyadeeni taha inspires ee aan idinku soo gudbin jirnay wax kasta oo aan u arkayno inay bulshadeena ay faa'iido u leeyihiin gaar ahaan maanta waxaan ka niqaashaynaa barnaamijkeeni ahaa buug akhri buugna ku tali ayaa waxaan kusoo qaadanaynaa buug aad u kooban oo la yiraahdo you are invited oo micnaheedu tahay waad casuuman tahay buugani kooban wuxuu ka hadlayaa maxaa la dhahay qaababka ugu muhiimsan ee loo abuuri karo bulsho saameyn leh dhexdeedana saameyn isku leh banaankeedana saameyn ku leh buugga wuxuu ka kooban yahay afkaar aad u kooban aadna u sahlan balse dhaqangelintoodii ay abuuri karto saameyn aad u ballaaran ay ku abuuri karto ururada iyo maxaa la dhahay hay'adaha ganacsi iyo guud ahaan bulshada saameyn ku abuuri karto marka fikradda ugu muhiimsan ee ugu horeyso ee buug uu ka kooban yahay waxaa ka mid ah dhanka xiriirada waxaan ognahay yani xiriirka ama communicationka waxaan ay dhahaan inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee fardiga iyo bulshadaba dhexdeeda saameyn ku leh qofka markasta uu ku fiican yahay qaab xiriirka ama abuurista xiriiro wanaagsan xiriiro qoto dheer ayuu wuxuu abuuri karaa maxaa la dhahayay saameyn ayuu abuuri karaa marka waxaan dhihi karnaa horumar kasta oo bulsho ay gaarto waxaa asaas u ama sal u ah qaab xiriirka dhexdeeda ka dhexeeyo sida ay u xiriirto ayaa ka dhexeyso marka yani qaababka xiriirada ama xiriiro qoto dheer loo abuuri karo way kala duwan yihiin mararka qaar waxaa laga yaabaa in loo baahdo in waqti dheer qofka kaala dhexeeyo xiriir badan kaala dhexeeyo si xiriirkiina uu u noqdo mid qoto dheer mararka qaarna waxaa laga yaabaa inay timaado inay marka hore ama isbarashadiina hore ay ku bilaabato qodob inoo soo socdo oo ah is-aaminaad uu ku bilowda saasna xiriir fiican uu ku dhasho marka waxa aad u muhiim ah yani qaababka xiriirka lagu sameyn karana ka mid ah in la abuuro marka horeba yani xiriir ku dhisan hadaf ama ujeedo dadka ka wada dhexeyso ku dhisan la abuuro taasoo abuuri karta marka in xiriirkiina uu noqdo ama xiriirka bulshadaas ka dhexeeyo uu noqdo mid aad u qoto dheer sidoo kale waxyaabahan afkaarta buugga uu xambaarsan yahay ka mid ah dhisidda kalsoonida qaabab kala duwan ayaa loo dhisaa bulshada waxay u baahan tahay in marka waxaan dhahnay xiriir inuu jiro xiriirkaas wuxuu u baahan yahay kalsooni uu ku joogto ahaado uu ku jiro ayuu u baahan yahay marka qaababka kalsoonida loo dhisi karo ama loo abuuri karo waxaa ka mid ah iyadoo referral trust waxa la yidhahdaa jiro ama kalsooni ama tazkiya qof ayaa qof kugu soo xiray waxaa lagu yiri qofaa ku soo wacay ama email ku soo diray ama meel isku aragteen wuxuu ku leeyahay niyahow waxa ii kaa soo diray hebel oo aad saaxiibo dhow tihiin waxaana kaa rabaa arrimahaas marka aad qof ku dhahdo runtii waxa way sahlanaanaysaa qofkaas inuu maxaa la dhahay creditka qofka kale asigoo isticmaalayo aad xiriirkiina uu ku bilowdo mid ku dhisan trust ama is-aaminaad ku bilow inuu ku dhisnaado ku bilowdo ayaa suurtagal ah sidoo kale qaababka ugu muhiimsan ee lagu sameyn karayo trustiga ama is-aaminaada waxaa ka mid ah wax la yidhaahdo in la abuuro vulnerability loop wax la yidhaahdo vulnerability loop waxaa laga wadaa in la abuuro bay-o ama yani maxaa la yidhaahdaa qaab ay qof kasta uu dareemi karo in qofka kale uu la mid yahay ama u baahan yahay tusaale ahaan waxaan dhahnay koox ama fasalada iskuulka ama jaamacadda ka mid ah ayaa waxaa wada aaday safar bay wada aadeen ama trainina loo wada kaxeeyey inta uu socdo waqtigaas traininka tababarkaas uu socdo ama safarkaas uu socdo qof kasta wuxuu dareemayaa inuu u baahan yahay qofka kale ee safarka kula jiro ama hawshan kula jirto taasoo marka abuureyso in yani iskalsooni ka dhex dhalato qof kasta qofka kale uu xiriir la sameeyo uu aamino ayaa halkaa ka dhalanayo sidoo kale waxaa jirta wax la yidhaahdo in qof kasta loo sameeyo dowr uu yeelan karayo yani waxa uu hawshaas la qabanayo saameyn inuu ku leeyahay markaad dhahdo tusaale ahaan howlaa la sameynayay ama traina la sameynay ama shaqaa la qabanayay qof kasta dadkii iyagoon is aqoonin oo isku cusub ayaa haddana waxaa siisay howlo ama shaqooyin isku xiran way isu baahan yihiin taasna waxay sameynaysaa in maxaa la dhahayay halkaa ay ka dhalato iyadana kalsooni iyo is-aaminaad wada shaqeyntaasi waxa aad dowrku ka geysatay ama saameyn aad ku lahaydba waxay markasta kaaga qiimo badan yihiin wax qof kale uu sameeyey geed aad gurigaada ku beertay oo weynaaday oo miro dhalay markaad aragto waad ku faanaysaa waxaad dareemaysaa in yani juhdiga aad gelisay waxaan hal maalina laga yaaba inaad geedkaas abuurtay kadibna uu
biyo roob uu ku baxay ama dhowr mar aad waraabisay waa iska juhdi yar laakiin qiimo weyn uu kugu fariisanaya waxaad dareemaysaa qiimaha arrinta ay leedahay ayaad dareemaysaa marka waxaa kaloo meesha muhiim ah xiriirada ama ururada ama hay-adaha markasta muhiim u ah inay jiraan wax la yidhaahdo shared values ama mabaadi la wadaago يعني marka aad meel ka shaqeynayso ama meel wax ka sameynayso waa inay jiraan waxa meeshas ay mathalayso adigana maxaa la dhahay ku matalayo waa waxa la yiraahdo marka wax kala dhaxeeyo tusaale ahaan ma wada shaqeyn kartiin ama ma wada ganacsan kartiin qof musrif ah oo maxaa la yiraahdaa xoolo ku dheel ah oo waxba u aabayeelaynin iyo adigoo maxaa la yiraahdaa taxadir badan wax kasta ilaaliso wax kasta meesha ku baxay meesha ka soo galeen rabta inaad ogaato iyo qof musrif ah ma wada shaqeyn kartiin marka waxaa loo baahan yahay qof mabaadi'diin ama valueskiin isu dhow yihiin oo kale in meeshas ku jiro taas oo sameynayso in xiriir wanaagsan iyo maxaa la yiraahdaa trust ama kalsoonin halkiina ay ku sii jirto sidaas ay ku imaan kartaa waxaa kaloo meesha ku jiro oo idan marna la dafiri karin inuu jiro kala duwanaansho يعني Soomaalida guud ahaan yani markasta waxay jeceliin wax walba inay uniform ahaadaan hadii qofku wax qabanayo mar laga yaabo in reer isku mid ah ay wuxuushas wada qabtaan waa qalad mar gaar waxa laga yaabo in yani jinsi isku mid ah ama rag kaliya u gaar ahaato ama gabar kaliya u gaar ahaato iyada nafteeda mar gaar weaknesses ay keensan kartaa marka waxa muhiim ah in kala duwanaansho uu jiro kala duwanaansho fikir inuu jiro kala duwanaansho maxaa la yiraahdaa reer inuu jiro kala duwanaansho maxaa la yiraahdaa mar gaar muuqaal inuu jiro taasna waxay samaysanaysaa in maxaa la yiraahdaa hooshas ay socodkeeda iyo jiritaankeeda uu sii joogto ahaado sii daa'ima had ay keensan kartaa hadii marka maxaa la yiraahdaa aan soo khulaasayno guud ahaan afkaarta buugan maxaa la yiraahdaa you are invited uu xambaarsan yahay waxa ugu muhiimsan waxa jirto afar shay oo maxaa la yiraahdaa ay dadku ama bulshadu isku hayn karaan hadii aad urur tihiin ama hadii aad shirkad tihiin hadii aad maxaa la yiraahdaa koox tihiinba afartan shay waa laga maarmaan isku haynta kooxdaas ama ururkaas ama jiritaankaas waxa laga maarmaan waa inay hayaan ama dhexdooda laga helo afartan shay tusaalahan kow inuu jiro wax la yiraahdo xubinnimo yani qofka inuu lahaado xubintaas waxaan meeshan xubin baan ka ahay يعني ميشان أنا نسب شاكتا إنه يجرو هدي أنا لهين دارينكي حبن نمو أو كلها ميشان أنا هيسن وفكاس أما حبن تاس meesha soo isaga tagaysaa oo maxaa la yiraahdaa saameyn kuma yeelanayso waxa kale jirto in ay jirto sidoo kale xiriir ku dhisan caatifi ah xiriiradu waan soo sheegnay inay ahaadaan trusted inay ahaadaan maxaa la yiraahdaa kuwo basis leh qaa'idooyin ku dhisan inay ahaadaan balse waxa sidoo kale muhiim ah xiriirkaas inuu ahaado mid caatifi ku dhisan kaliya aanan ku dhisnayn wax maadi ah aanan ku dhisnayn laga yaabo marar qaar adigoo stress ku hayo ama kelinimo dareemayso ama waxyaabo inay ka halaysiin aad dareemaysaa waxa laga yaabo qof الصحابة هيدين أو حلي هوريسوكين دنبيسي بقى وضا كل ميسين وقتي وضا قادنيسين تا waxay sameynaysaa marka in wixii dhan aad ilowdid qofkan la kulankiisi aad ku qaadat marka xiriir inuu jiro oo caadifi aanan kaliya ku dhisnayn maxaa la yiraahdaa maadi waxyaabahaas aan ku dhisnayn inuu jiro qodobka labaad inuu jiro mabaadi kala dhaxeeyo yani ururkaas ama meeshaas aad ka mid tahay mabaadi kuga xiraayo waxaan membership kaada tusaayo inuu jiro iyo qodobka afraad ee ugu dambeeyo in qofku uu lahaado qof kasta oo ururkaas ama hay'adaas ama jiritaankaas ka mid ah inuu lahaado maxaa la yiraahdaa roles ama door uu ciyaari karayo yani qofna ma la dhihi karayo wax saameyn ama lahan hadii aad maxaa la yiraahdaa lagu yiraahdo wax saameyn meeshaas kuma lihid fikir ma jeedin kartid hol lagu ma dhiibayo iidan waxay meesha ka saaraysaa in maxaa la yiraahdaa jiritaanka ama joogitaankaada meeshaas uu dhamaado afkaartas kaliya ama looma isticmaali karayo hay'adaha ama ururada looma isticmaali karayo balse waxa loo isticmaali karaa hay'adaha ganacsi shirkadaha loo isticmaali karaa dadka shareholderska ama saamiliyada loo isticmaali karaa shaqaalaha loo isticmaali karaa oo qof kasta inuu kala dhaxeeyo xiriir iyo maxaa la yiraahdaa wadaaytinimo iyo saameyn iyo inuu kala dhaxeeyo qofka kale in meesha ku jirto ayaa loo baahan yahay marka si qaab sameynta ururada ee saameyn badan ay u yeeshaan marka hore waxa fiican markaad urur sameynayso ama hay'ad sameynayso marka hore ka fikir nooca hay'ad ama nooca jiritaan aad rabto inaad abuurto natiijada adigoo ka fikirayso bilowgii aad joogtaa balse waxaad ka fikiraysaa natiijada aad rabto inaad gaarto kadib waxaad ku fikiraysaa memberska aad qaadan karto xubnaha yani aad qaadan karto ama ay ururkan ama hay'adan inay ka mid ahaadaan ay tahay ba iyadan waxay u baahan tahay in laga fikiro shuruudihii marka loo dejiyo sida lagu qaato waxa kale sidoo kale la rabaa
in la caddeeyo meel hoose laga bilaabo bulsho marka u adeegaysid ama urur aad samaynaysid ama wax saameyn leh aad rabto inaad abuurtid yani in badan waxaan jecelnahay in waqti kooban guulo waaweyn lagu gaaro lagu xaqiijiyo ama lacag lagu sameeyo ama maxaa la yidhaahdaa isbeddel lagu abuuro laakiin nolosha dabeecadaasaa uma samaysno geed yaroo aad beertay ama rag qaar wuxuu qaadanayaa inuu soo baxo waqti buu qaadanayaa inuu maxaa la yidhahdaa koro uu weynaado waqti bay qaadanaya inuu hoos keeno iyo miro keeno haddana waqti ay qaadanaysaa marka hore in meel hoose laga bilaabo waxyaabaha mabaadi'da muhiimka ah ee ururada iyo hay-adaha jiritaankooda ku salka leh ayay ku jiraan that is why markasta looga fikirayo waxaan la yidhaahdo sustainability waxaan wax la joogteen kara ma yihiin geedkii degdeg lagu fuulo degdegaa looga soo degaa bay yidhaahdaan soomaalidu marka wax kasta oo lagu degdego waxay abuurayaan in si degdega u fashilmaan si aanan fashilkaas u dhicin waxaa muhiim ah in waxa aad samaynayso ay ahaadaan wax gradually ama tartiib loo soo sameeyay strategically iyo siyaasad ahaan iyo qaab shaqo ahaan wax kastana looga soo fikiray qaab wax waqti badan qaadan karo loo soo dejiyay inay noqdaan halkaasaan kusoo gebagabaynaynaa niqaashkeeni ama gorfeynteeni ku aadanayd buugaas aan u bixinay waad casuuman tahay ama you are invited aada u mahadsantihiin waxaan rajaynayaa in ay laga wada faa'iidaysan doono dadka u baahanna la gaarsiin doono wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh